nimankii buqaada ahaa ee markii Cusmaan ay rabeen inay dilaan fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaas warmaanaadii dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa ee Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaadii dilaysaan miyaanadi ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatayna uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Cusmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xaasul noqdeen baa leeyahay taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu keligii uu taariikhda ku jira Cusmaan ninkaas aan ahay wadi aniga maxay iga dilaysaa warmiyaan adii garanayn buu waxaan ahay mujahhiz jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday sodonka kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri waraniga miyaan adii garanayn buu ninkii bi'r macuuna maalintii ansaari muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysanno waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'r ruuma aniga keenaye nabi allah ceel jannada ku yaala hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30,000 dinar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqaf muslimiinta abba hadhaasna biisa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Cusmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel jannada ku taala ilaahay ku ballan qaado nabigu ku yiri yaa Cusmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu inta ma janna ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonayn ninka ay malaa'iktu ka xishooto wayaan Cusmaan nabiga alayhi salaatu wasalaam oo jilibkiisaas uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Cusmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin علينا إن أنت هذو قبا صدق دابا عثمان كسر الرئيسو مرادي مد صار جيلب جيم محاد عثمان وحش وتال لقول يري ميانا كحشوني بالنبي ولنكها ملائكة إلهي بكحشوته وعن الأوجه هاي بالنبي ولا حدان سيدي وفرد لها حشو دراد العثمان ما صوق عليه ولا هالكام وجوج لها ورنكها دليسان وانكها سود نكها سنة حد يقدر لسان عليك علي بقوي مدي وإنما دي قرب سعودان وهو كسوق عتان يا أبا هريرة يا أمير المؤمنين نما كان بقادة كوسود لو أشب قالون مقالة المدينة أفرتن كن أنن باجوكتي هنلاينو هنقابنا قدها هنكجرنا نوقف الصحاب كويري وعلي مي ديك إسلام مقالة المدينة كد هذا مايه حتى أنا جاي دلان هاي دلان حتى أنا جاي دلان بقول أنا النبي عيسى يقولي قميص كإلهي كوجلي يبي دم عدون أننا كاسران هذا عثمان وقميص كأدس كسرت النبي يقولي أنا جاي أركي مسجد أقول قيامة هلا كل من مسجد بيرتي أبو بكر والنبي قال باب كي قراعي يا أبا موسى الأشعري وها بواب كالنبي هو قراعي وكما وأبو بكر وقصوا إجازة قاضي الجوب نبي قوش يقول عثمان أبو بكر بقى الباب كتاجن سوق الكذب يقول الباب وفصح جننا وبشارة هذا عمر بقى قراعي عمرنا وفصح إنه سوق له جننا وبشارة هذا عثمان بقى الباب كتاجن عثمان السوق الكذب وإذن جننا وبشارة بلا يا سيب دوتنا وشيك برسولكم مركب النبي يقول بشارة دي مركب الله شيء بلايا الله صعوتا وحول الله المستعان مركب تيبو عثمان حسوسي علي وحو كيري بلايا دا أنا جايني قبسني دون النبي جاي شيء أنا قلنا وانسك الصبر ياي أنا كيلي جاي هلا يدلو هندينتو أنا جو هذا هندينتو نينكلا أو مسلمين تكمدو إنك إنك مدا باتنا دا أودي بني سانة أنا قدرت يهود قال لمن يسكت دا يبيو الإسلام نمدو باقي هالنقطة
la oran maayo niman buqaada bay dileen oo Madiina ku dileen la oran maayo waxa lagu sheekeynay haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dawladda islaamku way baaba'ada la oran buu marka anu han iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dawladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeenu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto Usmaan dhiigiisii buu u huray waayo muxuu dhiiga ugu huri waayay min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxayay islaamnimada markay wax ka galaan baad u lex jecloon moogta asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam min kooga faqiirka ila kooga qaniga malqabeenka diinta islaamka iyagu waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluhu dana Usmaan sidaasay ku dileen ragay waliba uu soo manaa maalintii la dilaayay